Saga Films. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومالية ذي وين السلام عليكم سؤال جوكتان. horta marka hore waxaan leeyahay ummadii ku dhamaatay magaalada Muqdisho Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo intoodii gooriyootay inta dhaawaca aana Ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo dadkii ay ka dhinteenna Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo waxa saweeye ummadda reer Muqdisho waxaan leeyahay walaalayaal hadii aan run la isu sheegin waxba hagaagi maayaan runtu waxay tahay magaalada Muqdisho dadka u dhashay ciidan ahayn oo dhibteeda wax ka qaban karta ma jirto cid nabadgelyadeeda idin sugi karta oo idinka ahayn ma jirto inkasta oo dad badan macni dad kale wax saarayaana xaqiiqadu waxay tahay qof idin jecel iyo qof idin neceb toona qofna waxba idinkama qaadi kareen hadii idinku ay macnaheedu daacad idinka tahay inaad magaaladiina aad maxaan ku iraahday ammaankeeda sugtaan daacadina idinka tahay waa la idinka laga yaaba laakiin farsamadeedii ma haysaan magaalo kasta nabadgelyadeeda waxa sugi kara waa qofkii u dhashay qof aan dabeecad garanaynin dhaqan garanaynin meesha uu joogo waxba kama qaban karo haddii uu qofku maxaan ku iraahday dhalinyarada hadda la tilmaamayo leeyahay waa al-shabaab waa dadkiini weeye dhalinyaradiini weeye ma aha qof iyo laba iyo saddex iyo waxa ay iskaga jiraan laakiin majority-gu waa caruurtiinana idinku baa wax ka qaban kara marka anigu waxaan aaminsanahay khaladna waa qof bilaadan hode khaladna waa igu ahaan kartaa laakiin magaaladiina waxa mas'uuliyadeedii haya wax siyaasiyiintiina ah dad aan ka talin karin magaaladiina nabadgelyadeedana waxba aan ka qaban karin ama aan daacad ka ahayn macni ilaaha baa qofka bilaadanka calooshooda iyo maskaxoodahooda ma xukumi karno inagu laakiin ficilka muuqda uma eega inay dadka hadda mas'uulka meesha ka yihiin ay daacad ka yihiin marka aniga waxay la fiicnaan lahayd inta Soomaali weyn iyo waxaan iskaga baxdaan wax Soomaali weyn la yiraahdo ma jirto Soomaali weyn way jirtaa sibay u jirto waa ummadda shanta Soomaaliyeed u dhalatay laakiin ummadda shanta Soomaaliyeed u dhalatay isku dawladana maaha isku danna maaha xitaa intii ad wadanka la lahaydeen ee dalka la lahaydeen ma aaminsani maanta inay isku dantihiin oo isku si wax u wada wadaa hadday Soomaali Muqdisho ka dhaxayso maxay Soomaali oo dhami u difaaci weyday maxaad u heli weyday ciidamo gobol kale ka yimaada oo ku dagaalama Muqdisho waxa ila tahay aniga taasi inay muujinayso inaanay cid Soomaali la yiraahdo oo daacad u wada ihi Muqdisho joogay dawladda meesha idin joogtaana waxay muujisay inay ku fashilantay ammaanki waxa lagu leeyahay al-shabaab baa dhinac cashuurta ka qaata dadka garnaqsanaya al-shabaab bay isula tagaan sidaad markaa nabadgelyo u sugaysaan sidee guriyo u dhisanaysaan sidee daara u dhisanaysaan sidee u sheegaysaan inay magaaladeenu xor tahay laba mid weeye inay al-shabaab la heshiisaan
oo siyaasaday rabaan inay qayb ka noqdaan aad kula heshiisaan siyaasadii oo tidhaahdaan waayahay wadanka waa wada maamulaynaa oo ay noqdaan si dowladda uga mid noqdaan dabeedna ay ammaan bixiyaan iyo dee in loo xoog sheegto oo laga adkaado labadaa midun weey laakiin magaalo dad aad cadow ku sheegaysaan dhinac ka qaadaan cashuurta loo tagayo oo ayagii gar qaadayaan oo garsoor u yihiin dadkii sidaad ugu sheegi kartaa marka inay dowladi meesha ka jirto sidaad u odhan kartaa dowladdu maxay qabataa dowladda macnaheedu waa maxay waxa ka habboon inaad qirataan inaanay dowladina jirin wadankana la haysto oo magaalada la haysto kabacdina afalkeedii gashaan sidaa wax uga qaban lahaydeen iyo sidaa isaga saari lahaydeen waxaa kale oo aad iyo aada ula yaab leh dowladdan farmaajo dadkay soo dirsatay ee social media kusoo fahsiisay inay maanta guddigood ka faalloonayaan kelmad uu nin BK la yidhaahdaa yidhi kuwa wariyaal sheeganaya kuwa wax abwaana sheeganaya waxay sheegtaanba intay kayuu soo galeen ayaa waxay ku leeyihiin BK baa hadalkaa yidhi hadalka BK muxuu ka qaban karaa muqdisho hadduu matalan ammaano hadduu u duceeyo iyo hadduu habaaro midna waxba kama bedeli karo cidda wax ka qaban kartaa waa dadkii u dhashay magaalada haddaa u diyaar tihiin inay magaaladiina wax ka qabataan waxaan Soomaali weyn la yiraahdo iyo sheeka baraliidan ka hadha Soomaali weyn isu imanaysa Soomaali weyn isu soo socota midna ma jiro waxa isku soo haray waxa weeye dadkii la oran jiray macani koonfurta Soomaaliya kuwii qudhooda isku tala ma tihidin waa idin aragnaa salaam muuqata lama asaaso kismaayaa loo qaadanayaa ogolaanshiyo boosaasaa loo qaadanayaa ogolaanshiyo hadhowtana Facebook laysa soo bixinayaayo baroor beena baa la barooranaya alla wax ka jira ma jira marka dadka u dhashay Muqdisho idinka taladii Muqdisho la idinka raba xitaa dadkan kale Soomaaliyeed waa idin taageeri karaan oo idin caawin karaan laakiin hormuud idinka ka taladuna idinka gooda marka inta Soomaali weyn wax la yiraayo reer Somaliland ba macnaheedu nagu mudiciye iyo waxa ka gudba reer Somaliland waa dad halka tagay dawlad caalan leh walaaltinimo mooyane dibna ay idinku hayaan ma jirto bil xaqiiqan yaryarkan dowladda farmaajo ee fashilantay ee macni magaalada Muqdisho wadan iskaba dhaafay magaalada Muqdisho xalin karila ay soo daysatay social media soo fadhisay ilaa iyo maanta waxa ku mashquulsan BK ba waxa yiri iyo adeerkii Muuse Shaana u soo dhiibay marka waxay ila tahay dadka reer Muqdisho tashada magaaladiina sida u xoreyn lahaydeen guriyaha dhisanina waxba kale ha qabsanina ee labada sano ee soo socda ku u diyaar garoobayna magaaladiina xoreysaan inta kale wadanka haydin harsana ee balina Muqdisho xoreysaan isku day dadkana hadalkooda xumaan ha u qaadanina idin canaananayeen canaan iyo wanaag iyo walaaltinimo u qaata dadka qaar ka qaylinaya social media ee macna ka dhigaya kelmadda uu BK yiri dad ay 300 oo dhaawac iyo meyd isugu jira u yaalaan ma yahayn inay ku mashquulaan in heestay iyo BK ba kelmadda BK intii la oran jirin buu yiri markii hore soo galay dadka waa u duceeyay ilaahay umada macnaheedu dhibaatada ka saar buu yiri dadkii dhintay ilaahay u naxariista buu yiri
laakiin intii la odhan jiray unbuu ku darayday ee ahayd reer Somaliland waxaa habboon inay reer Muqdisho faraha ka qaadaan oy macnihii yiraahdaan walaalay hadda naga goosatay nabadgelyo intaan weligeed bala laha waana la odhan doonaa marka dadkaas waxaan leeyahay baroordiiq maalin kasta taagan iyo tacsi maalin kasta taagani wax fiican maaha magaaladiina waa xoreyn kartaan laakiin waqtigu wuxuu idinkaga lumay dadaydan shaqo ku lahayn dowladdan farmaajo ee meesha fadhidaana waqti badan waxay ku lumisay si ay dad kale u kala furfuri lahayd iyo siday Somaliland u kala furfuri lahayd ayay waqtigii ay malaha gelin lahayd inay Muqdisho gelin lahayd baxagaasay gelis marka ummadda reer Muqdisho waxaan leeyahay dad badan baa reer Somaliland baa nagu digtay reer Somaliland baa nagu kareeyay ma aaminsani ummadda reer Somaliland waxaan aaminsanay intooda badan inay idin tacsiyeysay inay ka xumayd laakiin hadalka uu ka yiri inaad si khalad u fakirteen si khalad macni u fasisheen in dad dan kala ahaana ay fasileen dad doonaya inaan dowladda fashilantay aan laga hadlin ee ku fashilantay ammaankii magaalada Muqdisho oo kaliya dad doonaya inaan laga hadlin ayaa suuqa soo geliyay buunbuuninaya oo wax weyn ka dhigay marka bil xaqiiqan anu waxaan la yaabanay sida idinku jaanis ugu hesheen ee macnihii idinku oo meydkiini daadsan yahay nin hadlay waqti ugu lumiseen ayaaba aniga fajicsiyaa makaabigu ah marka tan isku digashada mar kale aynu ka hadli doonaa laakiin waxaan idin leeyahay ilaahay dhibta ha idinka saaro laakiin wadadii dhibta ah kaga bixi lahaydeen qabsada sheekh shariif iyo xasan sheekhba khudbadahoodii waan dhageystay waxay ka hadlayeen wax run ah weeye Muqdisho waxay u baahan tahay dad yaqaana dad u dhashay dad dhaqan yaqaana oo inamada yaryar ee wax qarxinaya xaafadihiinay ka soo jeedaan kuwa xaafadaha kala yaqaana oo dadkani sida u fikirayaan iyo dhaqankooda yaqaana u baahan yihiin marka haddii ay idinka run tahay ood aaminsan tihiin inay ummadda reer Somaliland dhib idinku haysana naga xidha albaabadooda intayada idinla joogtana iska soo dareeriya annagana mana matalaan soomanaan diran waxbana nagama quseeyaan marka iska soo dareeriya oo ummadda tirada badan ee waxa idin qabanaysaa jireen magaaladiina ka buuxa iska soo dareeriya sida magac Soomaali weyn ku heli maysaan magac Soomaali weyn sida ku soo noqon maayo hadduu cirku daruuru haday dhiig isu bedelayaan hargeysa niman reer Somaliland hayn kama talinayo sababtu tahay markuu ka taliyay markiina diyaaradu la dhacay marka ma maskaxday biyiga jiraan markaan ogolaanayo mar dambe marka khayr iyo barako inuu isku ognahay ilaahay dhibta ha idinka saaro reer Muqdisho waa idin soo ducaynaynaa idinkuna tala la kaalay talada dalkiina iyo magaaladiina idinka go'da allana ha idin fududeeyo ha idin hawl yareeyo musabbix iyo BK iyo anigu toon waxba idinkama qaadi karno idinmana soo gaari karno marka khayr baan idin rajaynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.